gudoomiyayaasha ku-xigeenada xildhibaanada wasiirada dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu iyo intii kale aan ka tegeyba aad iyo aad maaragtay ayaan ugu faraxsanahay waa iga raalli ahaada khudbadana ma soo diyaarsan waan soo daahay daahiduna wax kale ma ahayni warba uma hayn haddaa la ii soo sheegay marka waa soo meeshaasna waxaa ka soo baxday sokoye la jecel yahana maahi shisheeye laga baqaayana maahi marka sidaa daraaddeed inaan maaragtay iska daba goostoo ka soo daba ordo waa igu waajib waana imid alxamdulillahi rabbilcaalamiin dhammaantiin aad iyo aad baad u salaaman tihiin guddoomiyaha cusub guddoomiyaha aqalka sare ku-xigeennada dhammaantiin waxaan idin leeyahay hambal iyo soo dhowaada isbeddelku waa wax fiican mararka qaarkood inkastoo anugu ma jecli isbeddelko waxaa iiga dhex muuqda had iyo jeer dibudhac markii election la aadahayo hal sanoo dibudhacahaa yimaada markii qof meesha ka baxo dhowr sanoo dibudhacahaa timaadda marka dibudhacuna maanta nooma wanaagsana waxaan nahay dad curduna waxaan nahay dad aad iyo aad maaragtay u daalay oo wakhtigoodu maaragtay uu aad u liito noloshu aad u liidato dhulkay la haysto aan weli annaan maaragtay aad mooddo inaanaan una istaagin dhammaanteen sidaan dalka u difaaci lahayn aad iyo aad horta guddoomiye marka ugu horraysa u mahadsantahay waan kuu soo dhowaynaynaa ilaahay waxaan ka rajaynayaa inaad noqoto kii baarlamaanka hormariya kii shaqo fiican maaragtay u horseeda inaad noqotaan ilaahay kaaga baryayaa mursal intaa kadib soomaali maanta meeshii joogto waan aragnaa meeshaan joogno taagannahana waan aragnaa waxaad mooddaa inaanaan iska warqabin aan iska warqabno soomaaliyeed haddaanaan nabaddeenna iyo ummaddeenna annaan u shaqayn oo ummaddanna dooratay oo aan mas-uulka ka nahay annaan horboodin oo annaan waxa ay rabaan ka shaqayn oo danahooda ka shaqayn aad iyo aad waa dib dhacaynaa intaan isku mashquuli lahaynna waxaan leeyahay aan wax kale ku mashquulno oo dalka difaaciisii horumarkiisaan ka shaqayno anigu galmudug waxaan ahay dadkii gobollada ugu maaragtay kuwa ugu cusub oo ugu dambeeyey baan ka mid ahay runtii waxaan isleeyahay markaan soo arkay awal xamar baan iska joogayoo waxay igu ahayd arrinteedu arrin maqal keliya iyo muuqaal badanna kama haysan laakiin waxaan ogaaday dadkeennii ma fiicna aad bay u liitaan aad bay dib u jiraan dhaqaale xumaa haysa hoggaan xumaa haysa inay fakeraan xataa wax wanaagsan kama fakerayaane wax xun keliya ku fakerayaan waxaan ka rajaynayaa xildhibaanada soomaalida guddoomiyeyaasha madaxweynaha ra'iisul wasaaraha iyo wasiirrada cid walba walaalayaalow aan ilowno see ku soo laabannaa aan ilowno aan ka shaqayno inaan dadka kasbanno oo dadku hadhowtana doortaan aan ka shaqayno inaan ummadda wax u qabanno aan ka shaqayno inaan dalkeenni soo ceshanno waa maqan yahay aan ka shaqayno inaan habeenkii markaan sheekaysanayno see yahay aynaan odhane caawa tuulaa la qabsaday see uga saarnaa barrintaan ku shaqayno ummaddeennii way halaagtay way baaba'day meel xun bay sii marayaan soomaalinimadii inay nacaan bay sii maraysaa ummaddii soomaaliyeed walaalayaal war kale ma haya anugu guddoomiye soo dhowaaw xildhibaannou soo dhowaada mooshinka iyo dhibaatada iska daayoo si fiican u shaqeeya hadhowtana annagaa idin soo dooranaynee si fiican noola shaqeeya han lagu shidininoo hana dhibinine waad soo laaban doontaa insha allah wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu